qabiil sida arooska oo kale u galbiya qofka ka dhinta inta la aasayana ciyaar qabriga ku dul qabsada waxyaabaha la yaab kale ee janaasada ama aaska Zuluga qabiilka Zulugu waxa uu ka mid yahay qabiilooyinka ugu ballaaran uguna facweyn qaaradda Afrika Zulu ma aha sida taariikhda lagu hayo hal qabiil laakiin waa qabiilo isku tagtagay oo uu mideeyay boqor ka talin jiray dhulka ay ku dhaqan yihiin 10 qarni ka hor kaasoo sida la tilmaamo ahaa mid cadaalad ku wanaagsan dadka Zuluga ayaa leh dhaqanno u gaara oo la xiriira guurka geerida iyo arrimaha nolosha haddaba dhinaca geerida iyo sida qofka ka dhinta ay ugu sameeyaan janaasada ama aaska ayaa mid la yaab leh oo dad badan ku noqon karta wax ka yaabiya sida dhaqankoodu yahay marka uu qof ka dhinto waxa meydkiisu yaalaa 5 ilaa 6 cisho taasoo ujeedada looga leeyahay tahay in fursad la siiyo ehelada meydka si ay uga soo wada qayb galaan aaska xabaasha waxa la qodaa maalinta la aasayo oo inta kale lama sii diyaariyo kadibna waxa ehelada iyo asxaabta qofka dhintay rag dumar iyo carruur intuba isku wada tagaan qabriga marka meydka la keeno ee loo akhriyo waxyaabaha diinta Kiristaanka ay aaminsan yihiin ee xabaasha lagu ridayo ayaa markaliya la bilaabaa oo la isla ogsadaa sacab iyo mushxaraduna isqabsataa waxa qabriga yimaada kooxaha durbaanka iyo carowga foorinta loo adeegsado sita oo mararka qaarkood la soo karisto kuwaasi oo ciyaarta wadaya inta sanduuqa meydku ku jiro xabaasha lagu dhaadhicinayo marka sanduuqa meydku ku jiro lagu rido xabaasha ayaa dusha laga saaraa bustayaal iyo durraaxado si ciidda ay uga ilaaliso sida ay aaminsan yihiin kadibna waxa dusha laga saaraa qoryo gudaha hore ee xabaasha waxa laga soo qaadaa ciidda ugu nadiifsan taasoo qof walba inta uu xantoobsado xabaasha ku shubo ciyaaraha iyo muuqaalada la mudo sida arooska oo kale waxay socdaan inta xabaasha laga dareerayo oo dhan marba marka ka dambaysana waxa isla sii oogsadaa jiibta iyo jaanta ilaa heer ay gaadho in sawaxanka iyo qaylada la ismaqli kari waayo waxa suurtagal ah in daawadayaal badan ay isweydiinayaan sababta ay dadkani sidaas u sameynayaan sida ay duqeydooda dhaqanku tilmaameen Zuluga ayaa aaminsan in qofku marka uu dhinto sida arooska oo kale loo sii galbiyo si noloshiisa cusub ee aakhiro ay ugu kowsato isagoo faraxsan dadkan dhaqan ahaan meelo badan ayay islaamka ka metelaan waxaanay leeyihiin isku duubni iyo iskaashi dhaqan ahaan qof kasta waxa qabriga looga qodaa meel aan dhowr tallaabo ka fogeyn gurigiisa ama hoyga uu ku nool yahay taasoo ay aaminsan yihiin haddii qofku noolaado in loo gurman karo sida ay ku doodayaan inkasta oo ay Kristaan u badan yihiin haddana waxay ducadooda ku dhameeyaan kelmadda aamin